السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ماركت محمد عمر فارحة وجوجا ودك ماركت فرانسيسكا. halkan waxaan ku soo dhaweynayaa mulkiilaha maaragtay wararka city awriye xasan soo dhawow waxaad iga warantaa arintan farxadda leh ee soo biirtay ee ku soo biirtay gobolka city marmarso iyo afdam bal ii waran waa mid aad iyo aad waa go'aan taariikhiya oo xukuumadda deegaanka oo hogaaminta u sarreysa madaxweynaha deegaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane Ibrahim Cusmaan Faarax ay ku gaadheen in la kordhiyo qaab dhismeedka dawladda si shacabka loogu fidiyo adeegii loogu baahnaa waxay ansixiyeen 24 maamul magaalo 4 gobol iyo sidoo kale 14 degmo nasiib wanaag gobolka city waxa uu soo biiray maxamedow oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in aan helno laba ismaamul magaalo ismaamulka magaalada Marmarsa oo xad la leh maamulka Diridhabe kuna soo fidayay isla markaasina si arintaasi xal loogu helo shacabkaasi bilaamaam ay u helaan xuquuqdoodii iyo adeegoodii isla markaasina magaaladan ku soo fidaysa loogu difaaco ayaa halka waxa laga dhigay maamul magaalo waxay yeelan doonaan maamul magaalo markaan ku leeyahay waa city administration bay heleen iyaga ismaamuli doona bahjadkiina waxay ka heli doonaan deegaanka iyo miisaaniyadii waxa la xuli doonaa hogaamintii qaban lahayd xilka shaqo abuur fara badan baa laga heli doonaa sidoo kale maxamedow waxa mudan gobol baa noo soo biiray oo loogu magac daray gobolka galbeedka city xaruntiisuna ay noqonayso oo waa afdam waxaan ku fahansiinayaa waa marka lagu leeyahay gobol waa sidii oo maaragtaanay hadda ka hor marka cali sabiix gobol weey carta soo kuma soo biirin waa sidaas oo kale ma sha Allah oo carta sida ay carta u leedahay inay hesho ay u leedahay komisar afdam iyo degmooyinka galbeedka city ba waxay hadda laga xukumi doonaa oo maamulkoodu noqon doonaa degmada afdam ما شاء الله sidaad maaragtay aad maaragtay banaanbaxyo ballaaran oo iyaa lagu taageerayaa oo gudaha ka socda ininka diasporaana waxa laga baahinaa doorkiina ka qaadatiin oo xukuumadda deegaanka Soomaaliya taageertiin ما شاء الله okay anigoo ku weydiinaya dadka maaragtay mas'uuliyiinta ee ugu horeeyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Aadan Faarax uu ku xigo madaxweynaha Kenya shanaad Mustafa uu ku xigo madaxweyne ku-xigeenka Ibrahim uu ku xigo gobolka city ninka haysta Ibrahim Yare dadka mas'uuliyiinta oo dhaqanka ugu sareeyo ugaas Mustafa maxaa fariin u diraysaa waxaan u dirayaa waad asiibteen guul baad gaadheen baan leeyahay shacabka in badan bay sugayeen oo mayna helin fursad uma helin waxa weey ragga maanta maamulka jooga waxay dhaliyeen goolkii loo baahnaa shacabkan ma haysan gobol ilaa iyo 4 gobol noqonaya ayaa hal gobol oo kaliya isku ah oo laga xukumi jiray Shiniile bal marka ay arin ka dhacdo galbeedka city sida lagu gaadho ay adag tahay hadday halkan kale ka dhacdo way adkayd laakiin maanta waxa la gartay sida ay si maaragtaan arinta loo soo afjaro in dadka loo dhawaado oo halkaas rag maamula oo gobolka maamula ay u helaan xuquuqdoodii ay halkaas ku helaan odayga ama waayeelka ama aabaha beertiisa laga dhacay ama beertiisa dhibaat ka soo gaar ee jooga erar ama meel kala jooga in uu Shiniile yimaado way ku adkayd laakiin hadda waa loo dhaweeyay oo xarun baa looga dhigay afdam si tabashooyinkaasi shacabka loo xaliyo oo loo difaaco ما شاء الله ما شاء الله marka waxay noqon gobolka city wuxuu noqon doonaa 2 gobol waa taariikh raga dhaliyay taariikhda xusi doonta ما شاء الله labana helay hadda qorna degmooyinka galbeedka waa kii laasixay marka waxaan leeyahay maxamedow waa guul baan leeyahay waa guul ما شاء الله ما شاء الله waxaan ku weydiinayaa aad baad u mahadsan tahay wariye xasan adiguba maaragtay ma yarid oo maaragtay dadka waxaad u tahay maaragtay wararka maaragtay warka wariyaha ugu fiican iyo maaragtay wararka city waa dadka dibadda oo dhan waan ku xidhannahay habeen iyo dharaba daawanaa intu soo itaabsi baad ka shaqaysaa maxaad ka codsanaysaa dadka
dadka gobolka city u dhashay ee adduunka dacaladiisa joogta maxaad ka codsanaysaa inay niyadda ku dhisaan ay ku garab galaan aad baad u maasanta maxamedow waxaan kaliya ka codsanayno in ayna taageeraan oo taageeradooda hiil iyo hooba sida adigoo kale iyo rag kale oo badan ay noo garab joogsadaan oo warbaahintaasi bulshada gobolka city u adeegaysa waa warbaahin ay iska leedahay oo u soo tabisa xaaladda dhabta ee ka jirta gobolka shacabka horumarkiisa iyo waxay tabanayaanba soo gudbisa marka inaa laysgarab taago dhinaca qalabka laga taageero dhinaca maad aragtaanay isku socodka hadday tahay transportation oo la sameeyo warbaahintan meelo kala duwan wakiilo ay ku yeelato insha allahu tacaala waana gaari doonaa waxaana sidoo kale aan noqon doonaa waa geel tv oo maxamed mulkiile ka yahay iyo wargeyska city waa laba warbaahin oo bahwadaaga waxaan ku leeyahay aad iyo aad baad u maasan tahay dadaalkaaga halka ka sii wad insha Allah waan gaari doonaa hadafkeena oo waxaan noqon doonaa sida adeecadaha caalamiga ee maaragtaane maanta lagu taxan yahay yaan insha Allah daafi doonaa ma sha Allah city waxaan leeyahay guul baad gaadheen diasporaga galbeed gobolka city ka soo jeeda dhamaantii guul baad gaadheen baan leeyahay xukuumadda la isgarab taago dadka ka xun siyaasiyiinta ee dadka dhaliilaya waxa weeye waa siyaasiyiinta khasaare baa la yiraahdaa waxay raggaasi maanta qabteen nin qabtay ma jirto waa in la garab joogsadaa madaxweynaha deegaanka madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxa xarunta dhexe ra'iisul wasaare ku-xigeenkana leh mudane aadan faarax iyo dhammaan mas'uuliyiinta gobolka city ugu horeeyay